maxaa ka jira in Hodan Cabdiraxmaan ay Masar la socday kadib markii ay aragtay muuqaalkan baraha bulshada lagu maadeystay saaxiibkeeda ama ninkeeda Mursal Muuse iyo sidoo kale Ugbad Aragsan muuqaalkaas oo ahaa mid qabsaday baraha bulshada 24 saac ugu dambeeyay sheekooyinka ku saabsan Mursal iyo Ugbad Aragsan waxa ka dhaxaya iyo muuqaalkan cidda baahisay habka loo duubay iyo Hodan waxa ay ka tiraadayaan eegi doona saaxiibayaal Hodan oo Masar la ilmeysay iyadoo ku sugan cariga Mareykanka ku darso waa xaamilo markay Hargeysa ka tageysay cunugii labaad iyana u wada Mursal Muuse saas ay tahay waxay dareemaysaa hinaaso iyo in saaxiibkeeda Mursal uu ka faa'iideysanayo maqnaashaheeda deetana mar kale xiriir la sameynayo gabadha garoobka ah ee Ugbad Aragsan ay kala tageen fanaanka Qamar Sugaani wax walba oo sheekooyinkaasi ku saabsan ayaan isdul istaagi doonaa ciida doobtay muuqaalka cidda baahisay waxa lagala dileeyahay maxaa ka jira xiriirka Ugbad Aragsan oo xiriirka ka dhaxeeya Mursal iyo Ugbad Aragsan maxayse ka tirisay Hodan Cabdiraxmaan dheere intaan gudagelin sheekooyinkan oo mid xiiso leh baraha bulshada falcelin badan ay ka dhalatay xalay ilaa maanta waxaan ku xasuusinayaa halkan waa hoyga fanka iyo suugaanta ee xogta fanka subscribe inoo dhig balelkana taabo say kugu soo dhacan muuqaaladayna warbixinada iyo sheekooyinka gaarka halkan ku baahino daawade ku soo dhawow channelkeena YouTube-ka ee xogta fanka halkan waa meesha kaliya aad ka heli karto macluumaadka la xiriira arrimaha fanka iyo waliba fanaaniinta sheeko walba la xiriirta arrimaha fanka ayaa daawade halkan ka heli kartaa waxaan sidoo kale halkan aan ku baahinaa muuqaalo xiiso badan aan isleenahay waa kuwa mudan in daawadayaashan aan u soo bandhigno mar walba channelkeena xogta fanka wuxuu idin soo bandhigayaa muuqaalo xiiso badan arrimaha fanka madadaalada sheekooyinka xiisaha badan dhacdooyinka ugu waaweyn ee fanaaniinta taariikhaha fanaaniinta aan soo qaadano kubii hore kubii dhexe iyo kubii dambe dhammaanba daawade halkan ayaad ka heli kartaa ka mid noqo saaxiibada channelkeena xogta fanka adiguna raacaya tilmaamtan subscribe gambalelkana taabo qaybta hoose ee commentigana mar walba ayaa daawade nagula wadaagi kartaa aragtidaada كربي مقيسة waagaaga qadarka yarka ah ee hoyga fanka iyo suugaanta oo aad kaga mid noqonaysaan kasoo aan ku hormaraysan sheekada Hodan Cabdiraxmaan oo Masar la ilmeysay Ugbad Aragsan iyo Mursal oo lagu maadeystay baraha bulshada ayaan ku bilaabi doonaa sheekadeena Mursal Muuse iyo waliba fanaanada Ugbad Aragsan ayaa laga duubay muuqaal iyaga oo aad u wada baashaalaya muuqaalka videoga ah oo laga duubay fanaanadan ayaa aad looga hadlayay baraha bulshada ay ku wada kulmaan Soomaalida aad u faraha badan waxaana laga wada bixiyay faalooyin kala duwan iyagoo aad ula yaabay sida ay isku nikireen oo baashaalayeen lamaanahan oo jecel wadaaga ah inkastoo ilaa hadda la ogeyn xiriirkooda waqtiga uu soo bilaabay xiriirka hoose ee ka dhaxeeya laakiin sheekadan ayaa waxa ay tahay mid aad u sii xoogeystay baraha bulshada dhowrka cisho ugu dambeeyay Hodan oo joogta Mareykanka ayaa la sheegay muuqaaladan ay gaareen markaas oo inay la ilmeysay hinaasa iyo Masar aad u xoogan Hodan waxa la xasuustaa in ay qaab hinaasa iyo Masar ay ku kala tageen saaxiibkeedii hore Alta ee Mareykanka isla deganaa waana qof aanan ogoleen in marna saaxiibkeeda lala wadaago ama naag kale uu guursado waxaase laga baqdin qabaa in guul darro uu ku yimaado ama uu burbur ku yimaado gurigan quruxda badan ee la asaasay Hodan hadda waa hooyo hal cunug midna caloosha ku jira ay u wado fanaanka Mursal Muuse waxay joogtaa cariga wadanka Mareykanka halkaas oo ay degan tahay waxayna Mareykanka ku laabatay markii ay uurka qaaday kadib ay Mareykanka aaday
sheekadani muuqaalkan cidda baahisa ayaa la isweydiinayaa inkastoo muuqaalada qaarkood la qabtay iyaga oo bandhig faneed ama meel aroosa ka heysaya labadani fanaani lagu casuumay si gaara ayaga oo weliba wada ciyaaraya muuqaal qarsoodiha laga duubay iyo ayaga oo si gaara sheeko u dhexmaraysa muuqaalkaas ayaana la aaminsan yahay in sabab u noqday xaaladan iyo xasradan ka abuurantay baraha bulshada sida muuqaalka videoga hoos kaga muuqdo ama aad ka wada aragtaan waa fanaanada labada fanaan ee kala ah mursal muuse cumar iyo weliba fanaanada Ogbaad Aragsan oo laga duubay muuqaal video ah muuqaalkaas aad loogu falceliyay bulshada Soomaaliyeed siyaabo kala duwan ay kaga hadleen inkastoo fanaaniintu aysan wax ceeb ay sameeyeen balse haddana muuqaalkan ay fanaanada labadani fanaan ay sameeyeen ayaa waxa oo tinay ku noqotay fanaanada Hodan Cabdiraxmaan Dheer oo muuqaalkan la gaarsiiyay iyadoo oo la arkay hinaaso ama aad kaga xanaaqday maseerna laga dareemay waxaana hadalkaasi waxaana la sheegay in laga diiwaan geliya hadalla xanaaf ah ay ku weerarayso saaxiibkeedii hore fanaanada Ogbaad Aragsan ayaa la sheegay in ay hore u kala tageen fanaankii Qamar Sugaani waxayna qof aad u madax bannaan oo aan la qabin laakiin sheekadan ayaa noqon karta mid xiiso badan u leh baraha bulshada wax badan ayaana la isla dhexmarayaa Hodan Cabdiraxmaan oo ku nool cariga wadanka Mareykanka ayaa la sheegay in la gaarsiiyay muuqaalka sheekadan ayagoo doonaya in wax badan ay ka ogaadaan العلنت مقال كان أيام وحو نقدي مثل سؤال بدل الإسكوي ديو دتك قاركودنا سؤال أي ككيران هذا عبد الرحمن ولي ما يسكى هذا المقال كان لكن وحل سورين يا إن آد كعروتي مركي عركت مقال كان صاحب كذي أما نكذي أو ثقة صلوا عيارة فنان ده اللي يرهده Ogbaad Aragsan shakadan waxay mid xasaasi ah hadaba waxaan isku daynay channelkina hoyga fanka iyo sugaanta inaan wax badan ka ogaano sheekadan dabagalna aan ku sameeyno dabagalka baaritaano iyo xoga aan sameeynay waxaan ku ogaanay in labadani lamaane Ogbaad Aragsan iyo Mursal Muuse ilaa hadda uusan ka dhaxin wax xiriir oo jacayl laakiin ay kulmisay xaflad aroos oo labadaba lagu casuumay halkaas oo ay ku ciyaarayeen soo bandhigina heesa jacayl labadaba waxa kulmiyay xaflad aroos ma jirto wax xiriir naga dhaxay anigii Ogbaad Aragsan aniga hal xaas ayaan qabaa waana Hodan Mareykanka ayay joogtaa ayuu yiri Mursal Muuse aan telefoonkan kula xariirnay markii muuqaalkan uu soo baxay xalay oo aan seen wax kaga weydiin waxa ka jira saxaanshaha muuqaalkan iyo waxa uu kala socdo waan yaabanahay ma ogi aniga muuqaalkan iyo sida ay dadku u warxumeynayaan aniga iyo walaasheeda Ogbaad waxaan lagu casuumay aroos ka dhacay magaalada Hargeysa waxaan ka qayb galnay arooskaasi waan ka ciyaareynay waana wax caadi ah in fanaaniinta la wacdo la casuumo ayna ka qayb galaan aroosyada ayna heesaan ama bandhig fanaadyada ama munaasabadaha kale ma ahan wax cusub iyo waxaan aan soo kordhin ayuu nagu yiri Mursal ayaa gashaan ka daruuray in wax xiriir jacayl oo kala dhaxay gabadhan oo aad loogu xaqlinayeen hadda labaduba isku fiican yihiin Ogbaad tani markay kala tagar saaxiibkeeda Qamar Sugaani ilaa hadda ma jira qof saaxiib ama qof la xaqlinayay marka loo eego warbixinadii ugu dambeeyay dhanka fanka iyo waliba guuxa fanaaniinta ka dhex jira isla Ogbaad oo Nairobi oo ku sugan magaalada Hargeysa ayaan isku daynay inaan telefoonkan kula xiriirno sheekadan si wax kaga weydiino hase yeeshee Ogbaad way diiday inay ka hadasho sheekadan waxayna nagu tiri xogta fanka hoyga fanka wad mahadsantiin ma doonayo arintan inaan ka hadlo mana rabo inaan xasrad weyn abuuro iga daaya please intaan hay ugu filnaato ayay nagu soo koobtay Ogbaad markaan telefoonkan kula xariirnay hadaba sheekada cajiibka waxay tahay waxaan doonaynaa inaan Hodan qodheed waxaan ka weydiino sida ay u aragto muuqaaladan qabsaday baraha bulshada iyo in lagu dalinayahay ayada iyo saaxiibkeeda Mursal in lagu kala geeyo nasiib darrase Hodan qodheedu way ka cudur daaratay ka hadlida muuqaalkan waxayna nagu tiri ma doonayo muuqaalkan iyo waliba inaan ka hadlo ma ahan wax aan i quseeya wax dad dana gaar ay ka leeyihiin ay doonayaan in ay warxumeeyaan oo aniga iyo qoyskayga inoo warxumeeyaan ay nagu tiro Hodan وما ستها لنا هذا مركل لقى تقصي في العلنتا كدلتي أو آد وقبستي برا بالشدة ضدك قاركود استعمال آلة فيسبوك يوتيوب هذا أي ثيابك الدنيا جيش كذا لكن جنرال كنا هو يفنك السجان توه حقيقية إن حريرة توصل لسه من فنانين تاس لما تبينه وذكرن إنه هم مقال أراس يكون كمان أي سنتين حرير أموح كان حيل لبضنا لما نسقى لبضنا لما نقول ده يا تلفون حتى نقول حريرنا مرسل Ogbaad لبضنا بس واحد كفوجين كل قلها شاشة كذا وحين الشيء إنه ته وحلا جبت بديه أي أراس يكون كل مال أجا داوديال مقال كينينه أن كوي جنش كذا لحريرته Ogbaad مرسل لما نهن وقت جاه
quruxda badan qaadan lahaa hase yeeshee beeniyeysa inay lamaano yihiin ayaan halkaas kusoo gabagabeynayaa muuqaalka mid lamid intaan ku kulmi doono saaxiib yaal nabadgelya daawade kusoo dhawow channelkeena YouTube-ka ee xogta fanka halkan waa meesha kaliya aad ka heli karto macluumaadka la xiriira arrimaha fanka iyo weliba fanaaniinta sheeko walba la xiriirta arrimaha fanka ayaa daawade halkan ka heli kartaa waxaan sidoo kale halkan aan ku baahinaa muuqaalo xiiso badan aan isleenahay waa kuwa mudan in daawadayaashan u soo bandhigno mar walba channelkeena xogta fanka wuxuu idin soo bandhigayaa muuqaalo xiiso badan arrimaha fanka madadaalada sheekooyinka xiisaha badan dhacdooyinka ugu waaweyn ee fanaaniinta taariikhaha fanaaniinta aan soo qaadano kubii hore kubii dhexe iyo kubii dambe dhammaanba daawade halkan ayaad ka heli kartaa ka mid noqo saaxiibada channelkeena xogta fanka adiguna raacaya tilmaamtan subscribe gambalelkana taabo qaybta hoose ee commentigana mar walba ayaa daawade nagula wadaagi kartaa aragtidaada كربي مقيسة